waxaa maanta magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Jubbaland ka furmay shirka madasha xiriirka arrimaha bini'aadanimada. Shirkan ayaa waxaa si wada jir ah u daahfuray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Beende Beende. Shirka ayaa waxaa ka qayb galaya gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle, wasiirada gargaarka dowlad goboleedyada, agaasimaha gargaarka gobolka Banaadir, wakiilo iyo safiiro ka socda beesha caalamka. Shirkan ayaa waxaa lagu faaqidayaa jihaynta gargaarka iyo taakulaynta dadka Soomaaliyeed ee la kulma musiibooyinka dabiiciga ah, gaar ahaan fatahaadaha iyo abaaraha. Shirka ayaa marka uu dhamaado waxaa la filayaa in ay ka soo baxaan qodobo muhiim ah oo wax looga qabanayo xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta dalka. Roobabkii da'ay bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa ka dhashay fatahaado ay ku barakaceen dad badan oo masaakiin ah. Meelaha ay saameynta ku yeesheen fatahaaduhu ayaa waxaa ka mid ah Baardheere iyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdullaahi Cabdi Xirsi, warbaahinta Milga TV, magaalada Muqdisho.